Assalaamu calaykum. Dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka wuxuu u muuqdaa mid sii galaya marxalado ka duwan kuwii hore. Weeraro ayay isweydaarsadeen labada dhinac. Sidoo kale, furimaha hore ee dagaalka guulo waaweyn ayaa laga soo sheegaya oo dhanka Ruushka ah. Wararkii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan kula wadaago iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira furimaha dagaalka. Sidoo kale, waxaan rabaa isla barnaamijkan inaan idinkugu soo gudbiyo warar cusub oo ku saabsan dagaal la filayo in uu dhex maro Hindiya iyo weliba sidoo kale Turkiga. Weliba ku dhex maro badweynta Hindiya. Sidee ayay wax u jiraan? Barnaamijka ayaad uga bogan doontaa soo dhawow. Nagu soo biir muuqaalka share gareey, aragtidaada waa muhiim, qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanid. Halkani waa Marqaati TV, taariikhduna waa 5 Agosto sanadka 2025. Bal marka hore aynu ku hormarno wararka ku saabsan dagaalada Ruushka iyo Ukraine. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxa uu galay marxalad cusub oo gacan ka hadal ah iyadoo mas'uuliyiinta Ruushka iyo Ukraine ay sheegeen in weerar cirka ah oo xooggan la isku qaaday ay sababeen khasaare culus oo baaxad weyn iyo dab xooggan oo ka kacay kaabayaal dhaqaale. Inkastoo aan la soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ama tiro rasmi ah. Koonfurta Ruushka, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Rostov Yuri Salyusar ayaa sheegay in weerar ay Ukraine ku qaaday gobolkan iyadoo adeegsanaysa diyaarado aan duuliye lahayn uu sababay dhowr dab oo ka kacay goobaha weerarka lagu qaaday, kuwaas oo midkood uu ahaa dab qabsaday xarun koronto hoosaada oo dabooleysay dhul cabirkiisu yahay ku dhowaad 500 oo mitir oo laba jibaaran. Yuri ayaa ku xaqiijiyay baraha bulshada, gaar ahaan Telegramka, in khasaare nafeed aanu ka dhalan weerarkaas. Kooxaha gurmadka degdega ahina ay ku guuleysteen in dabka la damiyo. Dhanka kale, wasaaradda difaaca Ruushka waxay sheegtay in difaacyada cirka ee dalkaas ay xalay ilaa iyo maanta ay soo ridayeen diyaarado drone 24 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayna oo Ukraine ay soo dirtay ayaa la soo riday. 7 ka mid ah waxaa lagu burburiyay hawada gobolka Rostov, kaas oo hadda noqday bartilmaameedka joogtada ah ee Ukraine ama ay weerarka ku qaadayso Ukraine. Wasaaraddu maanay cadeen tirada guud ee diyaaradaha ay Ukraine dirtay. Mana jirto wax warbixin rasmi ah oo dowladda Kiev ay ka bixisay weeraradaasi ilaa iyo hadda. Ukraine waxay marar badan sheegtay in weerarada ay ka fulinayso gudaha dhulka Ruushku ay yihiin kuwa lagu burburinayo kaabayaasha taageera howlaha military ee Ruushka. Waxayna sheegtay inay yihiin jawaab celin ka dhana weerarada joogtada ah ee lagu hayo magaalooyinka Ukraine. Dhanka kale, Serhiy Zelensky oo ah gudoomiyaha golaha magaalada Lozova ee gobolka Kharkiv ee bariga Ukraine wuxuu sheegay in magaaladaasi ay la kulantay weerarkii cirka ee ugu weynaa ee Ruush uu ku qaado tan iyo bilowgii dagaalka, taasoo keentay dhaawac soo gaaray dad badan oo ay ku jiraan 2 caruur ah, iyo sidoo kale burbur ku yimid kaabayaal muhiim ah, guryo la dego, iyo sidoo kale goobo korontada laga bixiyo, iyo sidoo kale inay dhacday biyo la'aan iyo koronto la'aan qaybo ka mid ah magaalada. Faahfaahinta burburka weli lama shaacin baaxadiisa weyn intay la eg tahay. Sidoo kale, dowladda Ruushku kama aanay bixin wax war rasmi ah oo ku saabsan weerarka ay qaaday. Sidoo kalena, taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine waxay sheegeen in khasaaraha ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka bishii Febraayo 2022 uu haatan gaaray in ka badan 1,850,000 oo askari, kuwaasoo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kalena 120 ka mid ah ay dhinteen ama ku dhaawacmeen 24 saac ee la soo dhaafay oo kaliya, waa sida hadalku dhigeen. Waxay leeyihiin weeraradii dhacay 24 saac ee la soo dhaafay 120 askari oo ciidamada Ruushka ah ayaan waxyeelo soo gaarsiinay. Qaar way dhinteen, qaarna waa ay dhaawacmeen, waa sida hadalka u dhigeen. Taliska ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ukraine ay burburiyeen kumanaan qalab ciidan oo Ruushku leeyahay oo ay ku jiraan in ka badan 11,000 oo taangi ah, qiyaastii 50,000 oo diyaaradood oo aan duuliye lahayn, iyo 100 diyaaradood iyo helikabtar ah, waa sida hadalka u dhigeen. Waxaa xusid mudan marka in gobolka Kharkiv oo ku dhow xadka Ruushka oo si joogto ah u wajahayo weeraro diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaalo tan iyo markii uu dagaalka bilowday, iyadoo xaaladda military ee labada dhinacna ay si joogto ah u sii kululaanayso. Sidoo kale, dowladda Ruushka waxa ay fulinaysaa weeraro culus oo dhanka dhulka ah. Magaalooyin ku yaala dhanka bari ama gobolada bari
waxaa ka soconaya dagaal foolkafoola. deegaano iyo tuulooyin dhowr ah ayay ciidamada Ruushku gacanta ku dhigeen 12 saac ee la soo dhaafay, taasoo qayb ka ah istiraatiijiyadda dagaal ee Ruushka uu la yimid. Ruushka waxa uu la soo baxay xeelado ka duwan xeeladihii hore ee dagaalka, wuxuuna doonayaa in guud ahaanba waddanka Ukraine gacanta uu ku dhigo. maalin walba ama waa walba oo dilaaca, Ruushku waxay gacanta ku dhigayaan ugu yaraan 10 tuulo, qaybna ka ah istiraatiijiyadda Ruushka uu ku doonayo gobollo badan in uu markan ku qabsado. Haddaba wixii ku soo kordha wararka iyo dagaalada ku saabsan Ruushka iyo Ukraine barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaad ku daawan doontaan. Bal markana daawadayaal aynu eegno Hindiya iyo Turkiga. Miyay ku dagaalami doonaan badweynta Hindiya? Warbixintan waxaa laga yaabaa inaad si weyn ula yaabto, laakiin warbaahinta caalamiga oo dhan ayaa daabacaya kadib ififaalo la arkay oo arrinta ku saabsan. waxaan u gudgalaynaa marka mawduucan. Hindiya waxay leedahay ilaaladayada hawada ee isku dhafan. waxa ay u istaageen sida darbi adag oo kale, mana aysan awoodin Pakistan in ay jebiso, ha noqdaan xitaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ama kuwa kale. waxay ku guuldareysteen in ay la jaan qaadaan tiknoolajiyadda Hindiya. eradaasi marka waxaa yidhi Audish Bahari, agaasimihii hore ee howlgallada cirka ee ciidamada Hindiya, isaga oo ka hadlaya waxqabadka difaaca cirka ee dalkiisa intii lagu jiray dagaaladii dhowaan ee ay la galeen Pakistan bishii Maajo ee ina dhaaftay. Delhi waxay awoodi lahayd inay ku ekaato sheegashada guusha nidaamkeeda difaaca hawada sida ay sheegtay warbixinta rasmiga ah, iyadoo aan faahfaahin bixin, balse sheegista cad ee ah in diyaarado aan duuliyo lahayn oo Turki ah la qabtay gudaha Kashmir waxay ka dhigan tahay xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Hindiya iyo Turkiga sababo la xiriira iskaashiga militari ee u dhaxeeya Turkiga iyo Pakistan, taasoo si cad u muuqatay dagaalkii ugu dambeeyay. kadib dagaalkii koobnaa ee dhawaan dhex maray Hindiya iyo Pakistan, Hindiya waxay xayiraad saartay akoonnada TRT Wall ee ay ku lahaayeen baraha bulshada X waa Twitter, waxayna joojiyeen heshiisyadii ay la lahayd shirkadda Turkishka ee lagu magacaabayay Jalebi Aviation, taasoo adeegyo ka bixisa 9 garoon diyaaradeed oo Hindiya ku yaala, taas oo hoos u dhigtay qiimaha saamiyada shirkaddaasi ilaa 20%. dhanka tacliinta, jaamacadaha Hindiya waxay joojiyeen heshiisyadii iskaashi ee ay horay ula galeen jaamacado Turki ah sida jaamacadda lagu magacaabo Jawaharlal Nehru, jaamacadda muslimiinta Mela iyo sidoo kale kuwa kale. xiisadaasi kuma ekaan heer dowladeed iyo hay-adeed oo keliya, waxayna gaartay heer ganacsi iyo mid bulsho. waxaa bilowday olole ballaaran oo lagu diidan yahay badeecadaha Turkiga, taasoo ay hormuud u yihiin dhaqdhaqaaqyada qowmiyadda Hinduuga ee firfircoon ee bulshada dhexdeeda. ururka qaybiya alaabaha macaamiisha ee dalka oo dhan ayaa ku dhawaaqay xayiraad buuxda oo lagu soo rogayo badeecadaha Turkiga, kuwaasoo loo qaybiya in ka badan 10 milyan oo dukaamo ah, lana qiyaaso qiimahooda $250 milyan. baraha bulshada ee Hindiya waxaa ka buuxsamay hashtagga boycott Turkey, cunaqabateynta Turkiga, taasoo la socotay ku dhawaaqista shirkadda ganacsiga elektarooniga ah ee Flipkart ee ah inaysan iibin doonin alaabaha sumadaha waaweyn leh ee Turkiga laga leeyahay sida LC Wakeki, Mavi iyo sidoo kale Trendyol. wadooyinka gudaha Hindiya, dad taageersan ciidanka ayaa sitay boorar ay ku xardhan yihiin calaamada Shiinaha, Pakistan iyo Turkiga oo ay ku dalbanayaan in la cunaqabateeyo saddexdaasi dal. si kastaba ha ahaatee, xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Hindiya ma ahayn mid si lama filaan ah uga dhalatay dagaalkii u dambeeyay, balse waxay leedahay raadad hore oo taariikhi ah. xiisaddu waxa ay bilaabatay markii Turkiga uu bilaabay in uu si cad u taageero Pakistan oo ku saabsan arrinta Kashmir, isagoo xambaarsan hadallo diblomaasiyadeed oo kulul kadib markii Hindiya ay laashay xaaladda gaar ah ee dastuuriga ahayd ee gobolka Jammu iyo Kashmir oo ay ku badan yihiin muslimiinta. gobolkani waxa uu lahaa xaalad gaar ah oo ilaalinaysa danaha muslimiinta, waxaana laga mamnuucay in dadka aan gobolka ka soo jeedin ay dhulka iibsadaan ilaa iyo markii ra'iisul wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa qowmiga ah ee Hinduuga ahi ay sharcigaasi laaleen sanadkii 2019. isla sanadkaasi Turkiga waxa uu daafuray istiraatiijiyad cusub oo ku wajahan qaaradda Aasiya. 5 Agoosto 2019, Turkiga waxa uu bilaabay aragtida Aasiya dib loogu noqonayo, taasoo sheegtay in Turkigu uu si wax ku ool ahi uga qayb qaato arrimaha militari, diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee qaaradda Aasiya, si uu uga baxo xuduudihii dhaqanka ahaa ee uu ku koobnaa ee ahaa dalalka bartamaha Aasiya ee Turkiga ku hadla, iyo saaxiibtinimada taariikhiga ah ee ula lahaa Pakistan, Malaysia iyo Indonesia. Turkiga wuxuu sidaasi sameeyey isagoo oo dareemaya cadaadis kaga imaanaya xiriirkiisii xumaaday ee midowda Yurub iyo Mareykanka, wuxuuna raadinayay in uu dhisto saaxiibtinimo cusub oo ka baxsan NATO sida uu ugu dhowaanayo Ruushka. sidoo kalena Turkiga waxa uu lahaa miisaan ganacsi oo aan isku dheelitirnayn oo la xiriira labada quwadood ee Aasiya,
Shiinaha iyo Hindiya. Sidaas daraadeed wuxuu doonayay inuu xoojiyo ka qaybgalka ganacsi si uu u furo fursado dheeraad ah oo lagu dhoofinayo shirkadaha Turkiga ee ka howlgala dalalka waaweyn ee Aasiya. Laakiin waxa dad badani xiise geliyay waxa ay ahayd ku lug lahaanshaha military ee xagga heshiisyada hubka iyo dhaqdhaqaaqa badda, gaar ahaan Geeska Afrika oo ah goob muhiim ah oo loo maro Aasiya iyo Badweynta Hindiya. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee martigeliyay saldhig military oo Turki ah, weliba si cad. Saldhiggaasi oo la yiraahdo Turksom ayaa ah kii ugu weynaa ee Turkiga uu ku yeesho dalka dibaddiisa, wuxuuna Muqdisho ka shaqaynayay tan iyo sanadkii 2017. Markii la gaaray Febraayo 2024, heshiis la gaaray ayaa Turkiga siinayay 30% dakhliga Soomaaliya ee laga helo aageeda badeed ee dhaqaalaha, taasoo beddelkeeda ah in Turkiga dib u dhiso hubiyo tababaro ciidamada badda ee Soomaaliya. Soomaaliya uma aragto arrintaasi qarash culus maadaama ay sanad walba ku weydo nus bilyan oo dollar kalluumaysiga sharci darrada ah. Bishii Sebtembar 2024 warar waxay sheegayeen in Turkiga uu wada hadallo la galay Soomaaliya si uu u dhiso xarun tijaabo ah oo loogu talagalay gantaalada ridada dheer iyo kuwa hawada sare, maadaama Soomaaliya ay leedahay goob istiraatiiji ah oo u dhow xariiqada dhulbaraha ee ku habboon tijaabooyinka noocaasi ah. Turkiga wuxuu horay uga shaqaynayay barnaamijyo gantaal oo ay hirgelisay shirkadda Roketsan, waxaana madaxweyne Erdogan oo ku dhawaaqay in uu dalkiisa sameeyay gantaalada Typhoon oo leh masaafada dhan 560 kilomitir, taasoo laba jibaar ka badan gantaaladii hore ee Turkiga. Abriil 2025, labada dal waxay kala siixdeen heshiis ku saabsan sahminta saliidda iyo gaaska xeebaha Soomaaliya, waxaana Turkiga uu helay xuquuq gaar ah oo ay ugu muhiimsan tahay in uu qodo 90% saliidda laga helo Soomaaliya sanad walba ka hor inta aysan dakhliga kala qaybsan. Intaasi waxaa dheer, Turkiga waxa uu xaq u leeyahay in uu si toos ah u suuq geeyo saliidda uu weliba helo isaga oo aan bixin qarashaad dheeraad ah. Xagaagii la soo dhaafay, warshadaha military ee Turkiga waxa ay gaareen Kenya iyadoo ay saxiixeen heshiis lagu iibinayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, kuwaasoo loo tababarayo ciidamo Kenyaan ah. Diyaaradahaasi horay ayay uga howlgalayeen Ethiopia, Djibouti iyo Suudaan, waxaana door muhiim ah ay ka ciyaarayeen raadraaca argagixisada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Xitaa diyaaradahan Soomaaliya waa la geeyay. dhinaca kale, isla waqtigaasi Turkiga waxa uu si tartiib ah ugu ballaaranayay Badweynta Hindiya, isaga oo kor u qaadayay joogitaankiisa military iyo sidoo kale warshadihiisa. 2024 Maldives waxa ay la saxiixatay heshiis ay ku helayso 6 diyaaradood oo Bayraktar ah, waxayna martigelisay markab dagaal oo Turki ah, taasoo ku soo beegantay iyada oo xiriirkii Maldives iyo Hindiya uu xumaaday xilligii madaxweyne Mohamed Morsi. horaantii sanadkii 2025, Turkigu waxa uu markaasi diray doon dagaal Falcon oo ahayd dooni hore oo dib loo cusboonaysiiyey, taasoo loo diray Maldives. Tallaabadaasoo dad badani la fajaceen maadaama Maldives aysan lahayn cadow muuqda, isla markaana ay yihiin jasiirado si gooni ah u yaala oo aan sidaasi ugu lug lahayn khilaafaadka military ee caalamka. Sri Lanka, Pakistan iyo Bangladesh. Tan iyo 2021, Turkigu waxa uu ka qayb qaadanayay casriyeynta ciidamada badda ee dalka jasiiradda ah ee Sri Lanka oo dhanka koonfureed kaga taala Hindiya, isla markaana xiriir dhow la leh Shiinaha. Dhinaca Pakistan iyo Bangladesh, Turkiga waxa uu noqday dhoofiyaha labaad ee ugu weyn ee hubka kadib Shiinaha, waxaana si gaar ah u iftiimiyey iskaashiga dhinaca badda ee u dhexeeya Turkiga iyo Pakistan iyada oo loo marayo mashruuca dhismaha markabka dagaalka ee loo yaqaano Milgem, kaasoo bilowday sanadkii 2018. Mashruucan waxa uu horseeday in la sameeyo 4 markab oo noocaas ah. 2 ka mid ah waxaa lagu dhisay magaalada Karachi, iyadoo sidoo kalena la gaaray heshiis ku saabsan in farsamada laga wareejiyo Turkiga lana siiyo Pakistan. 2 ka mid ah maraakiibtan, Babur iyo sidoo kale Badr, waxay horay ugu biireen adeega, halka 2 kale ee Khaybar iyo sidoo kale Taariikhna lagu wado inay ku biiraan dhamaadka sanadkan 2025. xiriirka Turkiga iyo Hindiya. Xaqiiqadii, Hindiya lafteedu waxay ahayd bartilmaameed hore ugu jirtay qorshayaasha Turkiga ee dhoofinta hubka, iyadoo Delhina ay ku saxiixatay heshiis ay la gashay shirkadda Turkishka ah ee loo yaqaano Anadolu oo qiimaha heshiiskaasi uu ku kacaya $2 bilyan, kaasoo lagu waday in lagu horumariyo adeegyada dhismaha maraakiibta ciidamada badda ee Hindiya. Hase yeeshee, xiriirka dhow ee u dhexeeya Turkiga iyo Pakistan ayaa keenay in Hindiya ay baabi'iso heshiiskaas, sida ay sheegtay Tara Kartha, xubin hore oo ka tirsan golaha amniga qaranka Hindiya oo la hadashay DW. Si rasmi ah, Hindiya waxa ay ku sheegtay inay doonayso horumarinta awoodda gudaha ee dhismaha maraakiibta si ay ugu sababayso baajinta heshiiskaasi, balse si weyn ayaa loo ogyahay in cabsida Hindiya ka qabtay xiriirka Turkiga iyo Pakistan uu ahaa qodobka ugu muhiimsan. Markii heshiiskaasi la burburiyey, Turkiga wuxuu go'aansaday in uu joojiyo dhoofinta hubka ee Hindiya, taasoo sii xumeynaysa xiriirka labada dal.
waxaana xiisaddu ay si cad u muuqatay intii lagu jiray dagaalkii u dambeeyey ee u dhexeeyey Hindiya iyo Bakistan. markaasi Turkiga wuxuu si rasmi ah u cambaareeyay howlgalladii military ee Hindiya, taasoo ka duwaneyd inta badan dalalka Islaamka oo soo saaraya bayaan dhexdhexaad ah oo xabad joojin ku baaqayay. jawaabta Hindiya waxay ahayd in ay dhaqaajiso kooxaha qowmiga ah ee Hinduuga si ay u beegsadaan danaha Turkiga iyaga oo ku baaqaya cunaqabateen. doorka dhabta ah ee Turkiga. doorka Turkiga kuma ekaan hadalla kaliya. Bakistan ayaa adeegsatay hub Turkiga uu leeyahay ama laga keenay intii uu dagaalka socday. wargeyska Indian Today ayaa sheegay in Turkiga si toos ah u taageeray Bakistan iyadoo diyaaradaha xamuulka military ee C-130 ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Karachi, sidoo kalena markab dagaal oo nooca aada uu ku xirtay dekedda Karachi. mas-uuliyiinta Turkiga ee taageersan aragtida Euro-Aasiyaanka waxay dood ku leeyihiin in iskaashi lala sameeyo Shiinaha uu yahay xalka ugu habboon ee Turkiga uu ku leeyahay Aasiya. dhanka kale, garabka taageersan xeerarka NATO iyo xiriirka reer galbeedka ayaa qaba in Ankara aysan ka fogaan karin danaha Mareykanka iyo Yurub ee gobolka. isla xilligaasi, Hindiya waxay bilowday inay ka falceliso istaraatiijiyadda cusub ee Turkiga oo si cad uga hor imaanaysa tan Hindiya, iyada oo xoojisay xiriirkeeda military iyo siyaasadeed ee ay la lahaayeen dalalka sida cad uga soo horjeeda Turkiga sida Armenia, Gariiga, Qubrus iyo Israa'iil. Turkiga iyo ka bixidda badda Mediterranean-ka. ciidanka badda ee Turkiga wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa in Ankara ay kor u qaado doorkeeda gobolka Aasiya iyo badweynta Hindiya, inkastoo ay dad badani u maleynayaan in Turkiga uu lahaa taariikh dheer oo badeed. haddana awoodda badda ee Cusmaaniyiinta si buuxda ayaa loo burburiyey intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka, mana aysan jirin wax dhaxal ah oo jamhuuriyadda cusub ay ka dhaxashay si ay ugu dhisto awooddeeda badeed. dagaalkii xornimada Turkiga waxa uu ahaa mid gudaha ah oo lagu xoreynayay Anatolia, mana aysan jirin awood ciidan badeed oo wax ku ool ah. sidaas daraaddeed, Turkigu ma uusan awoodeynin in uu dib u xoreeyo jasiiradaha ku kala firirsan badda kuwaasoo tan iyo markaasi hoos tagaya Gariiga. markii la aas-aasay ciidanka badda ee cusub kadib xornimada, waxa ay kaliya lahaayeen miinooyin iyo gantaalo lagu difaaco xeebaha, balse aan loogu talagelin in lagu qaado dagaalbadeed ballaaran. maraakiibta waxay ku koobnaayeen badda Marmara iyo xeebaha Anatolia. waqtigii ay ku biireen NATO 1950-meeyadii, Ankara waxa ay rumaysneed in muhiimadda ay Turkigu leeyahay ay khasbayso NATO in uu danta Turkiga u dheelitiro marka la barbar dhigo tan Gariiga. laakiin 1960-meeyadii taageerada NATO ee Gariiga ayaa aad u korodhay markii xaaladda Qubrus ay kacsaneed oo Mareykanku diiday in uu dhageysto Turkiga, xitaa isagoo u diray digniinta caanka ahayd ee madaxweyne Johnson si aanu u weerarin jasiiraddaas. waxay keentay in militariga Turkiga bedelo fahamkiisa ku aadan doorka Turkiga ee badda Mediterranean-ka. waxaa bilaabatay ololaha ummaddu waa inay samaystaan wixii laga hor istaago, waxaana lagu dhisay awood badeed casri ah si loo yeesho awood lagu falgeliyo badda Mediterranean-ka. intii u dhexaysay marka 1963 ilaa 1973, maraakiibta dagaalka ee Turkiga waxay ka bateen ilaa 50 markab, halka doomaha weerarka yaryarna ay noqdeen in ka badan 10. taasi waxay ahayd bilowga dhabta ah ee Turkiga ku yeesho saameyn badeed, taasoo keentay in Turkiga si military ah ugu duulo waqooyiga Qubrus. 1974 wuxuu Turkiga kadib sii xoojiyay joogitaankiisii badda Mediterranean-ka ilaa dhammaadkii dagaalkii qaboobaa 1990-meeyadii. Turkiga wuxuu bilaabay qorshe uu ugu magac daray qorshaha badda furan 1997, kaasoo ujeedkiisu ahayd in ciidanka badda Turkiga laga dhigo mid awood u leh in uu ka howlgalo meelo ka fog xeebaha, looguna bedelo ciidan badeed biyo buluug ah, waa Blue Water Navy. bilowgii 2000, Turkiga wuxuu sameeyey horumar weyn oo dhinaca warshadaha military ah, taasoo saameynteeda laga dareemayo maanta laga bilaabo badda madow ilaa badweynta Hindiya. Turkiga wuxuu sameeyey horumar la taaban karo oo dhanka maraakiibta iyo weliba kuwa quusa ah. wuxuu 2000 u daabacay qorshe rasmiga ah oo u ogolaanaya in la sameeyo howlgal ciidan meelo ka baxsan Turkiga, taasoo jebisay mabda'ii hore ee xadidayay awoodda ciidamada ee dalka. intii u dhexaysay 2007 ilaa 2023, tirada maraakiibta gudaha lagu sameeyo waxay korodheen 11 ilaa 54 markab. waxay sidoo kalena la aas-aasay kooxda howlgallada badda ee TMTG oo bilaabay dhaqdhaqaaqyo badeed oo joogto ah si loo tijaabiyo awoodda ciidamada. tusaale ahaan, sanadkii 2010 waxaa la sameeyey howlgal badeed oo dhex marayay 9 dal
badda Mediterranean-ka. 2011 waxay gaareen badda Cas, gacanka Cadan, badweynta Hindiya iyo badda Carabta muddo 70 maalmood. 2014 howlgal waxa uu gaaray xeebaha Afrika. Sanadahaasi howlgalka badda ee Turkiga waxa uu lahaa astaamo tababar iyo dhexdhexaadnimo, laakiin waxaa muuqatay natiijooyinkiisii markii la aasaasay saldhigga Turksom ee Soomaaliya iyo markii Turkiga uu farageliyay Tripoli 2020 si uu u difaaco dowladda Liibiya. Sanadkii 2024 kooxda TMTG ayaa mar kale tababar ku sameeyay xeebaha galbeedka Liibiya. Sanadkii 2009 markii ugu horeysay ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga, ciidanka badda Turkiga wuxuu galay badweynta Hindiya isagoo ka qayb galayay howlgallo ka dhana burcadbadeeda Soomaalida. Laga bilaabo waqtigaasi, Turkiga wuxuu aad uga shaqeeyay inuu joogto ka dhigto dhankiisa badweynta Hindiya si uu u sugo marinbiyoodka ganacsi ee u dhexeeya Aasiya iyo weliba inuu xoojiyo saaxiibtinimada uu la leeyahay dalalka aan ka tirsanayn NATO sida Pakistan. Tani waxay gaartay heerkeedii ugu sarreeyay sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo maraakiibta Turkigu ay gaareen Karachi, Colombo iyo Maldives, Port Klang oo Malaysia, iyo sidoo kale dhowaan Jakarta oo Indonesia, kadib heshiisyo horumarinta maraakiibta oo ay hormuud ka yihiin shirkadaha militari ee Turkiga, kuwaasoo lagu dhawaaqay bishii July 2025. Inkasta oo Turkigu uu si degan ugu ballaaranayo badweynta Hindiya, haddana waxay tani u tahay war farxad leh saaxiibadiisii sida Pakistan, Bangladesh oo ay dhowaan kacdoon ka dhacay lagana tuuray xukuumad taageero u ahayd Hindiya, iyo Indonesia, dalka saddexaad ee ugu weyn Aasiya kadib Shiinaha iyo Hindiya oo doonaya inuu helo madax bannaani istiraatiiji ah. Kaliya Delhi ayaa ilaa iyo hadda ka sii daraysa joogitaanka Turkiga iyada oo isku dayaysa in ay wiiqdo doorkiisa biyaha buluuga. Maxay kula tahay aragtada qaybta commentiga inoo qoray. Barnaamijka xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.